Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Gallad Cali. Maanta waxaan baranaynaa sida loo sameeyo logo fari ah. Marka koowaad waxaad tagaysaa PicArtist. Markaad PicArtist booqatid, waxaad tagaysaa editing baad tagaysaa. Waa mid cusub oo tusaale sida logadan oo kale. Logadan sida ay u samaysan tahay oo kale. Marka sida u soo saartid logo qurux badan, PicArtist waxaan soo dooranaynaa calaamad. Calaamada oo astaanta uga dhigi lahayn. Waliba goobaynaa. Waliba raadinaynaa sawir alahaada. Tusaale hadda waxaan sameynaynaa logo qurux badan. Tusaale waxaan sameynaynaa logo waxbarasho. Halkaan tagaysaa. Halkaan markaad tagtid, waxaad tagaysaa tools. Waad booqane tools. Waxaa imaanaysaa free shape. Waxaa imaanaysaa shape crop. Markaad imaatid, waxaad imaanaysaa koobabintan imaanaysaa. Koobabintan markaad imaatid, wax yar saan u soo jeedin. Marka waxaan soo jeedin geeskan koraad oo calaamada falaarta ah kore baa ku dhufanaysaa. Calaamadahan haddaad dooranaysid, inagu waxaan dooranaynaa calaamadan. Saasaan leenahay si ay bahashu noogu qurux badnaato. Waxaan leenahay save baan leenahay. Save markaan dhahno, text baan tagaynaa oo meeshii wax looga qori lahaa. Hadda magac baan isaga qoraynaa. Tusaale magaca doontid baad ku samaysan kartaa. Tusaale waxaan u sameynaynaa tusaale iskuul ama private ama goob waxbarasho ama machad waxaad rabtid. Al-Huda oo kale. Al-Huda Academy
وكالة الهدى أكاديمي صح والله هاي إن صح ما كانت هذه ماشي نكلر بعد ما نسى عشان مقطع هاي مقطع هذا ما قريب نوريك وعاود أدوها نوريك تاع أدو كلر أدوها نوريك تاع بلوك نوريك بلوك نوريك تاع متن نوريك بقى ما يتن نوريك بلوك بنوريك markaa beegna wareegtid waxaa imaanaysaa ben meela ku qoranta halkaana ben dadka qorobkii weeye qorob الهدى international academy camal oo kale كان هذا الهدى أكاديمي ولي كلر كان دورنا كلر وكا هذا صوب هاي الهدى أكاديمي إن سيف بعد هاي سيف بعد هاي هذا اللوجو دي واصليني السيف ده جلري ده مركز جلري هاد 6 شيء جلرية حاجة كان جلري بيج ارت هاتن أصحابي وكا الهدى أكاديمي سكول أما الهدى أكاديمي كوليج هذه ما عارف سيد بدو بحنيسها مرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.